mar labaad waxaan rabaa inaan caddeeyo maanta oo taariikhda tahay 20ka bisha 6 2019 inuu yahay gudoomiyaha sharciga ama rasmiga ee ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan Faarax Cabdi Cali Faarax Diin. waxay ahayd doorashada gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Hiiraan oo maanta ka dhacday hodheel Ramadaan oo ku yaala Beledweyne. doorashadan oo ahayd mid u dhacday hab qarsoodi codeeri ah ayaa waxaa codeynaya erga gaaraya 21 ergo oo ka kala yimid 5 degmo ee gobolka Hiiraan uu ka kooban yahay, waxaana ku baratamaya kursiga gudoomiyaha dhalinyarada ee gobolka Hiiraan Cabdinaasir Daahir Cilmi, Cabdi Muumin Cilmi iyo Faarax Cabdi Cali. waxaa hanaanka doorashada ay u dhacaysay goobjoog ka ahaa maanta xildhibaano iyo wasiiro Hirshabelle ka tirsan, aqoon-yahano, siyaasiyiin, saraakiil ka tirsan ciidamada qalabka sida iyo boqolaal ka mid ah dhalinyarada gobolka. hardan dheer kadib waxaa gudoomiyaha guddiga doorashada dhalinyarada gobolka Hiiraan ee maanta dhacday Cabdiwahaab Abuukar Xasan uu ku dhawaaqay natiijada doorashada. waxa uuna sheegay in gudoomiyaha dhalinyarada ee gobolka Hiiraan ee 3 sano ee soo socota ay ergooyinka u doorteen in uu noqdo mudane Faarax Cabdi Cali. 3 musharax ee tartamaysay waxay kala heleen marka koobaad qofka codka ku guuleystay musharaxa koowaad waa Faarax Cabdi Cali oo helay 13 cod oo kamid ah ergooyinkii codeynayay oo ah 22 halkaas ay guusha ku raacday. waxaa ku soo xigay Cabdi Muumin Cilmi Cabdi Ciish oo asagana helay 8 cod. marka la isku daray codadkaas waxay noqonayaan 22kii ergo ee ka kala yimid 5 degmo ahay ama ay u codeynayay 3 musharax aan sheegnay, halka musharaxa kale uusan helin wax cod. walaalkeen waan u hambalyeynaa Cabdi Daahir Cilmi. mar labaad waxaan rabaa inaan caddeeyo maanta oo taariikhda tahay 20ka bisha 6 2019 inuu yahay gudoomiyaha sharciga ama rasmiga ee ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan Faarax Cabdi Cali Faarax Diin. maadaama gudoomiyaha cusub aan dooranay ana ahay aniga gudoomiyaha gobolka dhexe sharciga inaan sheego qodob yar oo dastuuri ah oo qorayo dastuurka ama xeer hoosadyada aan isku dhaqno. qofka gudoomiyaha ururka dhalinyarada wuxuu haynayaa marka la doorto laga bilaabo maalinta la doorto muddo 3 sano oo ka bilaabanaysa maalinta doorashada. labadii musharax ee maanta doorashada looga adkaaday ayaa dhankooda ballan qaaday inay la shaqayn doonaan gudoomiyaha cusub ee dhalinyarada gobolka Hiiraan Faarax Cabdi Cali. runtii waxaan ku faraxsanahay qaabka doorashadii u dhacday iyo sida aad uga soo qayb gasheen iyo qaabka loo doortay walaalkay Faarax Diin. anigana qaabkii u dhacday iyo qaabeeshkii doorashadu u dhacday oo ku faraxsanahay, waana la shaqayn doonaa, garabkiisaan ahay. ma ahin inaan leeyahay aniga waan guul daraystay ruuxaan qabanaya dhinac kale aan u yeelanaya, laakiin waxaad ogaanaysaan oo markhaati ka noqonaysaan haddii aan guulaysto sidii aan u shaqayn lahay anoo u shaqeeyo bulshadooda markaasaaano ma raba inaan sii dheeraayo gari 2 nin kama wada gusliso. gudoomiyaha cusub ee dhalinyarada gobolka Hiiraan ee 3 sano ee soo socota Faarax Cabdi Cali oo dhankiisa war ka qaatay ayaa ballan qaaday waxqabad muuqda, waxa uuna dalbaday in lala shaqeeyo. maantay waa maalin weyn, waxay maalin weyn u tahay dadka reer Hiiraan, dhalinyarada reer Hiiraan. sababtoo ay tahay in lees doorto maanta uma horeyso, waa markii labaad. markii koowaad waxay ahayd maalintii la doortay isboortiga oo aniga musharaxa ka ahaa. maantana waa maalintii dhalinyarada reer Hiiraan. hambalyaan idin leeyahay insha Allah. shalay musharaxiinta wakiilada waxay ka soo horjeediyeen nin walba wuxuu qabanayo. aniga shalay 2 qodob aan sheegay. 2 qodob waxay ahayd hal lay doorto hana layla shaqeeyo. waa lay doortay qodobkii koowaad, codsigii koowaad waa helay. waxay dhiman la shaqayntii ay dhiman. waxaad moodaa mas-uuliyiinta Afrikaanka ama Soomaalida markay xil raadinayaan waxay sheegaan wax weyn. aniga wax weyn kama hadlin, haddana ma ka hadlaayo. shalay waxaan codsaday in lay doorto, qodobka labaad in layla shaqeeyo. waa lay doortay, wada shaqayntii iyo garab istaagii ayaan idinka rajaynaya haddii Ilaahay yiraahdo.
gudoomiyaha dhalinyarada Hirshabeelle maantana baneeya docda kale kursiga gudoomiyaha dhalinyarada ee gobolka Hiiraan mudane Maxamed Cabdilaahi Buraale oo dhankiisa hadlay ayaa yiri aniga waxaan dareemayaa farxad ka weyn dadka waxay dareemayeen waayo waxa maanta la joogo waxaan hormuudkeeda inaan soo gaarsiiyo maanta in halkan soo gaarsiiyo maalintan gudoomiyaha qabanay 5 sano ka hor waa maalin laga cabsanahay waa maalin qof walba uu ku dhiiran kari waa maalin qof walba waa lagu dilayaa uu leeyahay maanta waan noolahay fuliha loo sheegay inaan noolahay maalinta qof walba waqti uu leeyahay waxaan dareemayaa meesha aad ka tegaysid haddii adiga micno la'aan aad ka dhigtid micno la'aan ay noqonaysaa maalinta runtii waxaan ku dadaalay inay micno la'aan noqonin inay maanta saan la isugu qabsado doorashadan adag oo raggaas musharaxiinta dhididka ka keentay ay maraan runtii maarata waan ku faraxsanahay inay heerkaas gaarto ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan muddada uu jiray waqti badan oo soo qaatay runtii waxaan aad ugu mahadcelinaa dhalinyarada ila garab taagneed xilligaas ila soo shaqaysay oo u jeedid maanta wixiina hore u tihiin wixiina adinka dhalinyarada reer Hiiraan maanta wixii ayada hore maamul ma farigelin karo state ma farigelin karo cid kasta wax caday banaanka dhigtay runtii maanta waad ka hormarsantihiin gobolada kale ee dalka aan ogahay maamulkooda magacaaba gudoomiyaha dhalinyarada runtii waa urur bulsho waa in la doorto أنا قدوميها دليرة هيرشبيلة أو لبستنا ودورش اللي يقرب الله مقعبي كنت هيرشبيلة إن جارسيان ربا رسالة هيرشبيلة ده حنين جارسيان ربا إن يدين قبض الإسلام مارته وأركان لبدا قولنا هسكو كأنه أنا جاي نقطة على الشقادات إن ضد كين برشة اللي مدوبان دورش ده ويفرنات عد كستو ريد هيران مانتا هل كان وفرنات قفانا إيمان ضد مرة إلا ما بإيمان بوه شيء هو غلط قفر بوه وفرنات مانتا مال عدالة دحتالي كنتي مانتا أنا اللي يدورنا أي مجالين كحر ما هي بلدوينا إرجعين كدموين كلا خلي سي دموين كوجلان مانتا دمك كستو دموين كشنت دموين أو قبل كوليه شنت بوحسوي مادن مجالات بلدوينا وحود السعادة يوم دورتين ورقة الجلسي ما طبعا محاس أول واحد يجي تين وحنا نجمع كان مانتا واحد دورتين الدو واحد كان ليه الدو واحد صعبه قدوميات كلهم أنا وحنا يدينا هي قدوميين نكورك وحنا ربعين عن سفي عن ولا شقيه قدومية عصوي معنا ودمانتين وكفر أحسن مانتا واحد ماشي عن كدعي ووحي عن ربي ووحي عن فورن يعني مرة بيني واحد فرح بدن وحي كسر دو بحان ماشي عن شل السوق وحي وحنا ربع مال تاجرني أهاتو يكروسي ساعته wasiiro iyo xildhibaano Hirshabeelle ka tirsan oo gabagabadii hadlay ayaa shaaciyay in doorashada gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Hiiraan ay maanta ku dhacday hanaan ku dheehan xor iyo xalaal waxa ayna hambaliyo u direen gudoomiye Faarax Cabdi Cali waxaan qirayaa adoo ku hadlaya magaca xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle doorashadii halkan ka dhacday inay ahayd doorasho xalaal ah intaan anagu ka warqabnay oo shirkadii ahaan in doorasho sax ah ay dhacday runtii waxaan u hambaliyaynayaa dhalinyarada gobolka Hiiraan ismaamuray iyagoo cidda kula aan ka helaynin meel kale aan ku tiirsanayn inay heerkaas soo gaaraan ay isdoortaan si ammaan ah qaylo lahayn buuq lahayn musuqmaasuq lahayn isku doortaan runtii dhammaan dhalinyarada gobolka Hiiraan waa idinka hambalyaynaa marka labaad waxaan u duceynayaa mudane Faarax Diir uma hambalyaynayo waa loo duceeyaa qofka marka xilka loo dhiibo hawl adag uu qaaday runtii idinkoo guryihiina hurda ayuu u soo jeedi doonaa horumarka dhalinyarada gobolka Hiiraan hadhowna waxaad rabtaan inaad ku qabsataan oo aad tidhaahdaan maxaad qabatay xageed ka baxday xagee ka dhacday idinkoo guryihiina hurdaan danihiina ma waraacanaysaan marka ninkaa ha la garab istaago ha loo duceeyo gammoonka sidiisaba keligii wax ma qabto hambalyo Faarax hambalyo sidoo kale dhalinyaradii tartantay oo ayagana tartankoodii meel cad oo yimiday waxaan leeyahay ayagana hambalyo guud ahaan dhalinyarada gobolka Hiiraanna waxaan leeyahay hambalyo gobolka Hiiraanna waan haynay inaad taxliil xoogaa Hirshabeelle aad ku bartaa hortooda markii labaad midda kale wax cad ayaa maanta halkan ka muuqda gudoomiyaha cusub Faarax waa madax bannaan tahay doorasho xor iyo xalaal baa ku timid institution dhisan baa tahay oo adduunka laga yaqaano annaga ku faragelin mayno waxaan garab ahayn hadda waxaan la hadlay wasiirkii sportska iyo dhalinyarada wasiir Jeeyo oo asigana soo dhaweeyay arrinkan maanta meesha aan joogno waxaan idin leenahay hambalyo Maxamed Ibrahim Siyaad